subax wanaagsan waa subax aad u qurux badan hadda samaan ku soo toostay alxamdulilah dheh allahna ha kuu siyaadiyo sida u macaan tahay gooyin waa ka iska soo jafado saaka shaqadaan bilaabay haddaan dhammaynayaa yaa jidkaaga jabi عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي القادمة وعليكم السلام دمانتين saa u dhantihiin kusoo dhawaada gobol codsiisaan saamine subscribe share and like idinka ayaa xaggeena idinkaga fadhiya insha allah asxaabi wax badan aan maqnay laakiin hadda waan soo laabtay maasha allah tabaaraka saako waa idin soo duubay ama shaqo sii asbaxaayo dan waan soo dhameeyey kabacdi waxaa jira beri iskuula loo socdaa anigoo dharkeyga qaban soo biiday soo ilmahayga lunch boxay qaataan cuntadii aroor wixii kaloo igama maqnaan sii aroorso marka adeegaan iska galay kabacdi markaan adeega ka baxana waxaan rabaa inaan beri subaxa iyo kalahaadka isku diyaariyo insha allah dhexda waxaan ka bixiyey oo kale fiideo oo markaan guriga saas u tagay haddana qabeys iyo hirrig aan galay hooyo ilaahay ma arkin ma cadaabo ilaahay janeeyo jannada firdowsa allaha geeyo halkan waxaan aad uga salaamayaa hooyooyinka special needka haysto habeen iyo maalin ilmahooda u taagan autistic keli ma ahan cunug kasta oo xaalad kasta iyo condition kasta haysto oo xaalad ma arkin learning difficulty haysto ama disability kale haysto ama hiding disability ha haysto ama ma arkin visible or invisible disability kuwaraha haysto kulli waa cayaalkeygii kulli waa caruurteydii ama 20 ha jiro ama 3 sano ha jiro kulli waa idinla dareemayaa maasha allah ani waxaan ahay hooyo oo 4 ciyaal haysato maasha allah aniga 8 caruur aan dhalay laakiin 4 ayaa autistic ah marka waxaan ku celceliyaa markasta 4 ciyaal autistic haysato marka dadka qaar aan umaleynaayo 4taas bas inaan haysto laakiin dadka walaalaha isbartid oo ku barataan hawada isku barateen oo meeshaan aan friend ku noqoteen oo beri magaalada iska soo horbaxno inaan isbarano waxba ilaahay ku ahayn hawada isaga soo duceyno maasha allah tabaaraka in aan u sheego marka 4 aan haystaa oo special need ah oo gaar ahaan spectrum ah marka maasha allah aniga hadda xaaladda hadda aan joogo iyo xaaladda aan kusoo jiray waa kala gooni waxaa jira hooyooyin badan oo hadda ku jiro xaaladii ani aan ku jiray iyo jahawareerkii iyo kabteebilata iyo wareerkii iyo fahan la-aantii iyo cunugaadii marada ku jiidaayo oo wuxuu rabo farta ku fiiqi karin oo maarkin iska ooynaayo oo seexanaayo marka wallaahi haddii rabto uur leedahay haddii rabto walaac tahay cunugii kalena 2 jir markaas iska ah hadduu rabo oo hadalkiina hadlaynin oo maryihiina kugu jiidaayo wuxuu rabo ama wixii u baahnaa adiga unkaa sugaayo marka ilaahay ha noo barakeeyo waagiyaa baryey waxaan sameynayay next day-gaa idinku qabtay fiideo waa la idin jarjaray sacdiyo waqti ma haysale iskale waxaan dhahay marba haddii bashoodan adeeg iyo iskuul isku diyaarisaa kii subaxiina ku dar marka lunch box-ka 2 cunug aan u qaadaa 2 kalena waa u iibiyaa marka waxaan sameeyaa maba cunayaanbo marka haddii loo iibiyo xataa kuwaan ma cunayaan marka waa u xirxiraa cuntadooda intay soo kicin oo aniga aan cadaysado dhaqdo wajiga weesaysto tukado waxaan sameeyaa koob shaahan qac iskaga siiyaa kadibna waa feersi dhig horta war ma jiro hurdada xataa goosgoos ay ahayd hal il fur hal il xir markaan soo kacana waa kana meeshaan aan ku bilaawday cuntadii kaleetana faraayarkay igu jirtaa marka wax oo cunto oo iska maxaa la dhahaa geedkan kale waxaan oo chicken nugget iyo waxaas iska cunaan kuya oo karooyo marka meeshaas aan dhigay inkastoo saliid lagu karinin baagbaajyadii iyo wixii dhan saas aan dhulka ugu tiirtiiriyey darbiga aan ugu safay kabihii intaan kusii diyaariyey maalin saddexaad baxayso gabadha iskuulka aadaysay ayada ma baxayso 3 primary-ga ka bilaabaya 3daas waxay aadaan special need dharkii iskuulka meesha aan ugu diyaariyey iPad-kaas wiilkayga 10 jirka qaato wuu hadlaa laakiin sometime markuu stuck noqdo oo qoraa hadalkiisana isma 100% hadda
laakiin Ilaahay sidii hore way noo dhaantaa wuu hadlaa. Marka alxamdulillaah rabbil caalamiin. Marka wixii dhan u diyaariyey soo kacay ka dhacday quraac inaan siiyo waan soo toosiyey. Dabadeedna shaah casho waxaan sameeyey oo ayaa loo kariyay ma ogi. Wixii aan samaystay qaar caano shaah ay cabaan qaar caano kaliya cabaan. Aniga bakeeri shaahan daaqada ka istaagay waxaan jeclahay gurigiisa iyo qoraxda inaan fiiriyo. Sawir calan Soomaali inaan surtay ahayd laakiin ma ogi. Carruurtayda waaweyn ma saareen ama taanba uma helin aan ka dejiyo. Haddana ceeb ma leh waa calan isma ceeb lahaa maasha Allah. Lunch box-kii wixii haddana meesha soo dhigay khalaas waa diyaariyey. Ilaahay awlaada ha noo daayo waxaa waaye ilmaha especially ha ahaadaan aniga ahaan isku si loo korinayo hawshooda waa raadsan tahay maasha Allah. Markay soo kaceen waa u soo caaliyey. Bahashaan hadda idinkaga faa'iideeyo hooyo iga dhaq waaye inta nijaasada gambaleelkaas ay i taabanayaan. Marka waan soo cararayaa meeshaan joogo. Gaar ahaan wiilkayga 10 sano ahaan u samaystay hooyo oo ku dhahayaa wash my bag si fiican ma u dhihi karo. Laakiin wash me oo dhahaa. Meeshaan waxaan kaloo ugu dhejiyey bariis close the door waan daray baraayad inay tahay musqusha ayaan ugu dhejiyey. Kabacdi markii la dhaqay loo diyaariyey jidkana jabiye baskeena noo imaaday. Carruurtayda 3 bas u imaato. 2 isku bas ay raacaan 1 bas gooni raaca hal kale bas gooni raaca maasha Allah tabaaraka. Subaxdii halkaas ay noogu dhamaatay. Next day-geena insha Allah khayr Allah nooga dhigo asxaabtayda qaaliga subscribe ii saara channel-ka kor u qaada insha Allah haddaa ka heshiin fiidiyoyaal badan ayaan idiin soo samayn doonaa insha Allah. Waa mahadsantihiin walaalahayga qaaliga ah. Assalaamu calaykum.